nabaday daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena galabta oo aynu ku soo qaadanayno xanuunka COVID-19 ama coronavirus ama COVID-19 waa xanuun virus ah oo dunida maanta gebi ahaanteedba xanibay nafa badanna galaaftay kuwa badanna ayaa linka dhigay waana COVID-19 oo ilaa imika dawadiisu adduunweynuhu ku mashquulsan yahay sidii loo heli lahaa dhinaca kale khubarada caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba waxa ay ku talinayaan in guryaha la joogo shaqooyinkana la iska daayo haddii aanay daruuri ahayn si looga hortago ama loo yareeyo aafada xanuunkan taasina waxay keentay dhaqaale burbur baahsan oo dhammaanba dunida laga dareemayo qof kastana aqalkiisa ka dareemayo xanuunkan faraha ba'an dunida ku haya ayaa waxa uu saameynteeda ku yeeshay qaaradda Afrika haddaba sidee ayay ula tacaalayaan Afrika iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkani aan ku hormaray dhinaca Afrika gaar ahaan waddankaasi Kenya oo markii dadkaasi guryahooda loogu taag waayay inay joogaan amarka dowladda iyo qawaaniinta laga soo rogay bandoodana ay qaadan waayeen wixii ciidanka iyo dadweynaha dhex maray sidan ayay u dhaceen aan dhinaca kale eegnay waddanka Jabuuti caasimadda Jabuuti ayaa ahayd markii ay bando madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku soo rogay waddanka si loola tacaalo xanuunkan aadka u faafaya bandooda kadib waxa ay dadweynaha qaar ka mid ah cabasho ka muujiyeen marxaladda iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkan COVID-19 gabadh dadweynahaasi ka mid ah ayaa waxa ay ka waramaysaa sida uu iyada iyo qoyskeeda u saameeyay xanuunkan COVID-19 waxayna tiri يمكن إنه بحي وإنه بعض أمد بيا كوبير باللح بلولا أمد بيانا قلد قوة بحي سنة وضيعش قريبي بيننا فريستان وحبط بضا يد ميالين هرت هذا وحبط ميالين إلهي مويا لعدكم الله لا مجد عنهم كدولي يدبحن وجري وددك هيني إلهينا هنقرم مريبا لنا أنا قوة يربع نوم قادك لنا ودد مسلنا وإلهي وعابد يانا مضن المدحون waxaad garatay ma albaabadii baa noo xidhnay oo gaajo aqaladii hoostiisii nagu dishay waxaan cunno waxaan cabno midna ma haysano adaan kuu baahanay mudana madaxweyne noo soo jawaab dhinaca kale xukuumadda dowladda iyo dadweynaha dhammaan aqoon-yahanka dhakhaatiirta ayaa dhinacyo badan iyagoo iskaashanaya waxa ay wacyigelin ballaaran u fidiyeen dadka Soomaalida oo ay ku farayaan inay ka taxadiraan xanuunkan faraha ba'an dunida ku haya balse dadka Soomaalida ayaa ah kuwo weli aan dhagahoodu warkaasi qaadin waxayna yiraahdeen annaga islaamaan nahay waa isjecel lahay waa isdhunkanayna waa isxambaaraynaa waxaan wada cunaynaa kalsooni aan ku qabnaa taayida waxbana ka qaadi mayno xanuun laba yaraad baalkan kaduudiyaha dawo ma lehen ninkii cirbad la durana markii horeba khatar